السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa qodob aad u xasaasi ah kaasoo ah sidee isaga yareyn kartaa caloosha ama baruurta. Kaga bogo halkan channelka hadda ku cusub tahay subscribe dheh, kambalkana furo, like iyo share na kama marno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. maanta barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa insha Allah sidoo qofka caloosha isaga yareyn karaa ama oo baruurta isaga yareyn karaa adigoo isticmaalaya waxyaabaha aan kuu sheegi doono insha Allah dawladmo. waxaan rajaynayaa insha Allah muddo 4 maalmood inaad isteelkaaga dib aad u hesho, waayo maadaama qofka ragga uu ku qurxan yahay isteelka uusan ku qurxanan caloosha inay weynaato iyo inay isteelkiis wax ka qaldamaan. maanta waxaan rajaynayaa 4 qodobood inaad hadda si sax ah u sameyso sidaan aan kuugu sheegay aad u sameyso, muddo ka yarba 3 maalin hataa inaad iska dareento jirkaaga. barnaamijka 3 qaybood ayaan u qaadan doonaa insha Allah. 3 barnaamijka qaybood aan u qaadan doono waxaan rajaynayaa 1 maxaa lagaaga baahan yahay inaad sameyso, 2 maxaad u baahan tahay inaad qaadato ama aad cunto, 3 sidee ayaad u isticmaali kartaa. waxyaabaha lagaaga baahnayn inaad sameyso ama cuntooyinka aan loogu talagelin qofka inuu cuno ayaa waxaa ka mid ah 1 sokorta inaad cunto lama rabo iyo in wax walba sokor ka mid ah, hadday noqon lahayd timirta, hadday noqon lahayd buskudka iyo hadday noqon lahayd xalwadaba, wax walba sokor ku jirto ka fogow muddadaas 4 maalin ah. waxaa kaloo ka fogaanaysaa bariiskaas oo lagu sameeyay saliid ama saliid ha lagu kariyo ama baruur ha lagu kariyo ama subag ha lagu kariyo, ka fogow. waxaa kaloo ka fogaanaysaa baastada, suugada lagu kariyo saliidda iyo waxyaabahaas oo dhan ka fogow. waxaa kaloo ka fogaanaysaa caanaha faatiska leh, caanaha lo'da ah ee subagga kor ka soo fuulaya, ka fogow ayagana. mar haddii kuwaas laga reebay waxay tahay su'aasha aad isweydiinaysid maxaad cunaysaa haddiiba bariiskii, baastadii iyo wixii macmacaana dhan laga reebay. waxaan aaminsanahay aniga cuntooyin badan oo aad u badan oo fara badan inaad adiga aad heli karto kuwaas markii laga reebay. cuntooyinka aad cuni karto qodobkeena labaad ee ah cuntooyinka aad cuni karto ama aad qaadan karto ama lagaaga baahan yahay muddadaas 4 maalin ah. cuntooyinkaas waxaa ka mid ah inaad cunto masagada. haddii aad masago jeclan waxaa jirto galeyda. galeyda dhowr nooc ayaa laga sameeyaa, waad ogtahay. muufada, canjeelada, soorta, cambuulada, nooc walba laga sameeyaa galeyda. waxaad kaloo cuni kartaa qamadiga ama waxaad kaloo cuni kartaa digirta ama waxaad cuni kartaa ay qudaar dalka ka baxda. marka aan intaas kuu sheegay intii aan ka soo reebay aad ka reebtoonaato intaan hadda aan kuu sheegay in aad cunto, marka waxaad arki doontaa muddadaas 4 maalin ah inaad isbeddel aad u weyn aad dareento. markii intaas aan kuu sheegay waxyaabaha sirta aan kuu sheegaa marka oo intaas markaad sameyso kaaga caawin kara inay calooshaada hoos u dhacdo. sirtaas waxay tahay 2 shay oo qof walba awoodi karo, qof walbana maanta aysan ku adkaynin inuu helo. waa 2 shay oo easy iska ah. 2daas shay wax kale ma ahan, waa liin iyo sanjibiil. sanjibiil markaan ku leeyahay ma ahan midka qalalka ah daqiiq ah ama qalal midkood doona ha noqdo, ma ahan. waa sanjibiilka cagaaran ee asigoo qoyan la soo baxshay. sanjibiilkaas qoyan iyo liin ayaad isticmaalaysaa in raashin kasto aad cunayso, hadday noqon lahayd quraac, hadday noqon lahayd qado iyo hadday noqon lahayd cashaba. jadwalka aad ku isticmaalayso ayaan kuu sheegayaa. qodobka 3aad, jadwalka wuxuu ku ahaan jiray subaxii inaad quraacato, aad qadayso, aad cashayso. maanta haddaba waxaa iska beddelay. waxaad samaynaysaa quraacdaada waxaad ka hormarinaysaa galaas cabitaan ah. galaaskaas cabitaankaasna oo ah sanjibiilkaas oo aad shiidatay iyo liintaas 3 xabba ah aad ka meeranaysaa. mar walbo waxaad isku darsanaysaa gabal yar oo sanjibiil ah iyo 3 xabbo liin ah ayaad cabitaan ahaan u shiidanaysaa, ayaad cabaysaa. quraacda ka hor subaxii markaad soo kacdo adoon calooshaada waxba taabsanin intaas ayaad cabaysaa. kadib quraacda cunaysid noocay waay marka. quraacda cunaysid waxay tahay cambuulada waad cuni kartaa
laa ba'as wax ma dhibaayo. waxaa kaloo cuni kartaa digirta yani qamadiga yani wax walbo oo ka hor imaado ukunta waad cuni kartaa. يعني subaxii markii aad saas ku soo baxdo qadada ayaa la imaaday. qadada markii aad cunto intaadan cunin ka hor qadada waxaad samaynaysaa ayadana galaas biyo ah yani biyihii qandaca ahaa iyo liintii iyo waxaad isku shiidanaysaa iyo sanjabiilkii yani waxaad cabaysaa galaas ka mid ah. yani markii aad 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo kadib aad cabto waxaad cunaysaa qadadii aad ugu talagashay. hadday noqon lahayd bariisku waad cuni kartaa markii uu yahay waxba saliid aan lagu karin sidiisa dabka loo saaro biyo cad oo kaliya lagu kariyo. baastada sidoo kale kaligeed markay tahay waad cuni kartaa. yani waxaa la diidan yahay waxay tahay wax saliid oo dhan wax dufan oo dhan waa laga cararayaa. markii aad samayso intaas waxaa kaloo samayn kartaa ukun ayaad ku cuni kartaa bariiska. yani waa qaleel qofka bini'aadamka waxa uu ku cunayo u baahan yahay. yani biyaha intaadan ku cabin cabitaanka aadan la gaarin waxaad cunaysaa bariiskaas ama baastadas waxaad awoodo ama yani qamadigaas wax kasto aad awoodo waa cuni kartaa. marka intaas markaad samayso waxaa la gaaray cashada. yani faaki ama qudaar oo kaliya waa ka dhigan kartaa ama yani waxaa kaloo ka dhigan kartaa cuntadan cambuulada kale waa ka dhigan kartaa. yani qamadiga oo kale kaligiis waad ka dhigan kartaa. yani digirta kaligeed waa ka dhigan kartaa. yani laba xabo ukun hataa waad ka dhigan kartaa cashada markii aad cunto waxaad sugaysaa 4 saacadood ama 2 saacadood oo kale. yani dadka badanaa Soomaalida ma gaaraan xilliyada qaar dadka bini'aadamka ay gaaraan. yani marka waxaan isleeyahay markii aad cashadaas cunto waxaa laazim ah in ay u dhaxayso 2 saacadood cashadaada iyo jiifkaaga. yani cashadaada iyo jiifkaaga markay 2 saacadood u dhaxayso markaad seexanaysa aad waxaad cabaysaa liintii iyo sanjabiilkii haddana mar kale aad isku shiidanaysaa. yani waxay la tahay 4 maalin inaad wax walba aad ugu bogsanaan karto, 4 maalin aad calooshaada ku yareyn karto, 4 maalin aad wax walba aad nafsadaada aad ka dareemi kartid. yani waa sida hadda aan ku sheegay markaad u isticmaasho yani adoo cuntooyinkaas kale haddii aad jecesho xitaa inaad iska maarantid 4 maalin waa 4 days waa 4 maalin oo kaliya inaad ka maaranto. shirkeeni halkaas ayuu ku agyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.